وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك واجي بريبا أو بحلقا ورابشو واجي بريبا أو بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو وعن مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو وعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. وحالكاas ku nimid oo ardada iyo waalidiinta wax ka barata qamiistii jamcaha halkaas ku yimid in wax barashada kor loo qaado wadanka ila wadanka waarteen waxa ka jira wax barasho kala duwan oo hadii ahaato midda quraanka midda balkeeda maadiga inta waa magaalada ka jirta wax barashada marka magaalada waxay leedahay macad weyn bay leedahay oo jaaridu gacanta ku hayso oo liyaada dugsi hoose dhexe budbud magaalada dugsi sare ma laha laakiin waa rajaynayna Abdullahi markii dugsi sare inay hesho dugsi hoose dhexe sare budbud anigu waxa ka mid ahay macallimiinta dugsiga hoose dhexe budbud wax ka dhigta adigu muddo waxaan joogaa 8 sano magaalada macallinka ahay magaalada horumar badan gaartay iskuulka dhowr difacad mar wax ka qalin jeesay 20 iyo 5 arday oo ismar shahaada ka qaadatay waa difacadii koowaad difacadii labaad 15 ba arday aheen oo sanadkii hore shahaadooyinkooda la siiyay marka difacadii saddexaad markaan barajeynayna marka haduu Ilaahay noo xarjeynayna in wax barashada halka ku socoto hooyooyinka waaweyn wax barashada ama dadka waaweyn wax barashada ka baahdana in wax barashada u barto wax barashadu weyn yaraan midna ma laha meeshan kale markaan u soo gudbo midnimo maahan iskuul xil subax walba la dhigo oo sabti iyo axad iyo isniin iyo talaado arbaca ma waa qamiistii jamcaha arday waxay bartaan hooyooyinku waa iska mashquulsan howlaha guriga iyo caruurta waxay iska mashquulsan waxay soo codsadeen in macnaha la baro qamiistii jamcaha wax la baro anagana waa jibno waqtigan iska nasan leeno heesha taamkaas ka haysan iska nasano laakiin codsiga waqtiga waxa sii maadaama bulshadina u baahan yihiin wax barasho qamiistii jamcaha aw dhitaan dadoo weyn inta reer isku jiraan ku yarna wax ka rajaynaa Abdullahi inaa macad ku darno oo dugsi hoose dhexe galaan uniformkooda loo soo dhameystiro ardada macadka ka mid noqdaan khamiista jimcoodana ay faa'iideystaan cilmiga meesha ka socday caafimaadka farsamada gacanta wiilasha dadka kale inay farsamada gacanta bartaan waa aragtay miisas iyo kuraas iyo agab u baahan furniture-ka u baahan yahay magaalada u baahan tahay ayaas gacantooda ku soo dhigay taasna waa fursad qaali ah qamiis caama ugu talagalay dadka inay ka wacyi gelino qaadka maandooriyaha wadanka la haray ama qaadka waa taqaanin in wadanka dadka ka abaabulno in iska daayaan dadka inta cunta anagana ay rigelino hooyooyinka laftoodana ay rigelisa qayb ka yihiin oo wadanku noqdo wadan dadkiisu wax bartaan anaga waxa u istaagnay dadka yararka arkaysan wiilasha iyo gabdhaha isku jira inaan badbaadino ilaahay wax badbaadin kare inaan ka badbaadino maandooriyaha iyo wax la midka qaadka marka horumar weyn bay dadku gaareen fursada marka ma soo laalaabato الفرصة تعرضكم مع الفرصة لا تكرر فرصة مركز هذه معنى كذا تاويزيرجي ويري كل يوم في كل يوم استفادة معنى كذا وين فايدة هل حرفنا الله كذا مركز أنا وحاسبه هنا خميس جمعها إن معرفة فرصة أس معنى كذا لقى فايدة هذه معرفة مثلها أو فرصة يوم معرفة معرفة عفماتك هي حسابته يوم معرفة تربية وهمك إذا إن شاء الله بهندنا أول سعتي waxaan ku soo gabagabeynayaa madrasada in ballan qaadaan ina aadaan oo la wadi jirteen laakiin warxamatashiil baa iska jira oo war beena ayaa la gudbiyay marka leesal khabar kalma ayay Nabi sallallahu alayhi wasallam wax lagu khabraahay si waxa aragto kala maahan waxaan filayaa hadii Allah idmo inaan hadda in ka badan ba madrasada maad ka budbud maad iskuulka ah
inaad ku arki doontaan ma ayideen inaa aadaan markale ma ayideen ma ayideen dankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno